Working with environment ku shaqaynta environmentyada of Microsoft Word MS Word. Okay, Microsoft Word 2016. Microsoft Word 2016 wuxuu isticmaalay features like sida the ribbon and quick access toolbar ayuu leeyahay feature-kani. Okay, where you will find halkaas oo aad ka heli doonto comments amaro to perform kuwaas oo ku qabta ama ku filiya comment tasks hawlaha guud in Word-ka. The ribbon marka ribbonka contains wuxuu ka kooban yahay multiple tabs taabyo fara badan ama dhowr ah which you can find kuwaas aad ka heli karto near of the top qaybta ugu sareysa of the Word window-ga. Each tab marka tab waliba contains wuxuu ka kooban yahay several groups kooxo dhowr ah of related comments kuwaas oo leh commentyo la xiriira. For example, tusaale, the paragraph group kooxda paragraph on the home tab ee ka tirsan home tab contains waxay ka kooban tahay comments amaro for managing kuwaas oo lagu maamulayo tasks qoraallo iyo documentigeeda. Some groups qaar ka mid ah kooxahan also sidoo kale waxay leeyihiin small arrow falaaro yaryar in a bottom right corner-ka bottom-ka that you can click kuwaas aad gujin karto for more options si aad u hesho optiono fara badan. Quick access toolbar waa maarata waxaan qaadanaynaa quick access toolbar oo ka mid ah features uu leeyahay 2016. The quick access toolbar isagu muxuu yahay? Is just above wuxuu ka sareeyaa the ribbonka ayuu ka sareeyaa and allows you wuxuuna ku ogolaanayaa to access inaad ka shaqaysiiso comments amarada guud regardless ayadoo loo eegayo of which tab is selected tabkee ayaa ku dooran kooxda ayaa joogta. By the default ahaan it shows wuxuu kusoo muujinaya the save keydinta undo maarata ka noqoshada redo dib u samaynta aan commentyadaas ayuu kusoo bandhiga. But laakiin depending on waxay ku xiran tahay your needs baahidaada you may add waxaa kusoo dari karta other comments comment kale kusoo dari karta.